يا نسوع عاويي شعبك الصومالي يا نسوع عاويي شعبك الصومالي يا إذين كعي koox dhalinyaro ah uu hogaaminayo Cabduqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilal Bulshaawi ayaa waxa ay joogaan gobolka Gedo gaar ahaan degmada Dolow. dhalinyaradan oo caan ka ah baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok ayaa suxul qaamay oo u istaagay inay caawiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Gedo iyagoo ka faa'iideysanayo caanimadooda ay adeegsadeen aalada TikTok oo ay dadka Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida ku baraarujiyeen si ay u caawiyaan walaalahooda tabaaleysan ee gobolka Gedo. Som TV Soomaaliya ayaa waxa uu suurto gashay inay la xiriiraan dhalinyaradan gaar ahaan Bilal Bulshaawi oo sidoo kale loo yaqaano madaxweynaha TikTok waxaana uu sheegay inuu deegaanada uu booqday uu ku soo arkay xaalad bani'aadinimo oo adag. abaarta ka taagan deegaano badan oo ah kuwa ay Soomaalidu degto ee bariga Afrika ayaa saameysay dad iyo dunyaba. gobolka Gedo ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay sida weyn u saameysay abaarta. Cabduqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilal Bulshaawi ayaa la hadlay warbaahinta. alxamdulillaah waxaan maanta goobjoog u nahay maalin farxadeed oo aan saaka ku soo kacnay. halkan ayaa xalay hooy inoo ahayd laakiin hadda waxaan goobjoog u nahay in aan dadkii dhammaantood aan ku wareejinay raashinkii aan ugu talagalnay. waxaan rabnaa inaan hal mar u mahadcelino dadka ka qayb qaata barnaamijkan. yaa na soo caawiyey شعبك الصومالي yaa na soo caawiyey شعبك الصومالي yaa idiin kacay yaa idiin kacay yaa na soo caawiyey yaa idiin kacay yaa soo abaabulay yaa soo abaabulay yaa soo abaabulay allah idin sharfo dhammaanteen waxaan nahay dhalinyaro. Bilal Bulshaawi ayaa aaminsan in haddii ay Soomaalidu isgarab qabtaan in laga bixi doono dhibaatada haysato dadkan. Cabduqaadir Maxamed Faqi, Som TV Soomaaliya, Barawe, gobolka Shabeellaha Hoose.